بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. cashirkan waa cashirkii koowaad ee kitaabka farbarashada iyo yeeriska kiisa labaad. kitaabkan waxaan ku baran doonnaa isbedbedelka xarfaha qoraalkooda, kicinta kelmadaha af carabiga, reebniinka, iyo arrimo kale oo badan. cashirkan waxaan ku baranaynaa 4 xaraf ee af carabiga ugu horeysa isbedbedelka qoraalkooda. isbedbedelka xarfaha wuxuu qofka u baahan yahay marka uu yeersanayo. xaraf walba waxaa bedela qoraalkiisa booska uu kelmadda kaga yaalo. mar wuu ugu horeeyaa kelmadda, marna dhexdeeda ayuu ku jiraa, marna wuu ugu dambeeyaa. waxaad si fiican u fahmi doontaa markaad tusaalooyinka aragtid, insha Allah. qaybtan ugu horeysa ee ay ku qoran tahay awwalul kalimati ama bilowga, waxaan mar walba ku qoraynaa xarafka markuu ugu horeeyo kelmadda. qaybtan ku xigtana waxaan ku qoraynaa xarafka markuu kelmadda dhexdeeda ku jiro. meeshan ugu dambeysana waxaan ku qoraynaa xarafka markuu kelmadda ugu dambeeyo. xarfaha af carabiga xarafka ugu horeeya wuxuu ahaan jiray alif waxmaale, laakiin hadda kadib waxaan dhahaynaa hamza. hamza markay ugu horeysa sidan ayay u qorantaa. markay dhexda ku jirtana 3 nooc ayaa loo qoraa. markay ugu dambeysana 4 nooc ayay u qorantaa. boos walba uu xarafka ka yaalo kelmadda gudaheeda waxaan ka bixin doonnaa tusaale iyadoo ay xarfaha kulli isku xiran yihiin, sida saan oo kale. sidoo kale waxaan ku hoos qori doonnaa xarfaha oo gooni u kala qoran, si ay ugu fududaato carruurta yaryar ee kitaabka koowaad soo dhammaysay, insha Allah. haddaba tusaalahan xarafkiisa ugu horeeya waa hamza. aan hingaadino marka. hamza kordhigan a, kaaf kordhigan ka, aka, laam kordhigan la, akala, siin kordhigan sa, hamza kordhigan a, sa'a, laam kordhigan la, sa'ala, daal kordhigan da, raa kordhigan ra, daara, hamza kordhigan a, daara'a. tusaalahan ma aynan ku hoos qorin wax xarfo ah, sababtoo ah xarfihiisa ayaaba kala go'an oo 3doodaba laguma xiro gadaashooda wax xaraf ah. hana ka walwalin, kitaabka gudihiisa ayaad ku baran doontaa, insha Allah. xarafka ku xiga hamza waa baa hooskaale. saan ayaana loo qoraa markay ugu horeysa, markay dhexda ku jirtana sidaan, markay ugu dambeysana sidaan. tusaalaheeda ugu horeeyana waa kan: baa kordhigan ba, raa kordhigan ra, baara, kaaf kordhigan ka, baaraka.
shiin kor dhigan sha baa hoos dhigan bi shaabi cayn kor dhigan ca shaabiica yaa kor dhigan ya jiim hoos dhigan ji yaaji baa godan bu yaajiibu taa kor dhigan ta qaaf hoos dhigan qi taaqi faa godan fu taaqiifu kaaf godan ku taa hoos dhigan ti kuuti baa kor dhigan ba kuutiiba baa godan bu haa hoos dhigan hi buuhi taa kor dhigan ta buuhiita thaa kor dhigan tha miim kor dhigan ma thaama raa kor dhigan ra thaamaara yaa kor dhigan ya thaa hoos dhigan thi yaathi qaaf godan qu yaathiiqu baa godan bu cayn hoos dhigan ci buuci thaa kor dhigan tha buuciitha cashirkan intaan ayuu inoogu egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh